haddaba yacni dadka karaamaadka lagu irsaaqay ee wanaagsanaa ee daraja istiqaamadana darajada ugu sarraysa ka gaaray waxaa ka mid ah wa miman kaana calaa haadihi alxaala dadkii yacni wanaaggaas weyn la siiyey ee yacni lagu irsaaqay karaamadaas waxaa ka mid ahaa sayidunaa saciid ibnu jubayr ninkii taabicigaa saciid ibnu jubayr la odhan jiray radia allahu tacaala canhu xukiya waxaa la wariyey ana alxajaaj binu yuusuf ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray ee dhibka badnaa ee dadlayska ah caamalahu allaahu bima yastaxiquhu irshad ilaahay ha kula mucaamaloodo wixii uu mutaystay ninkaas wuxuu mutaystay uun in la cadaabo weeye xayla ummaddii buu eber ka dhigay asxaabu rasuulillahi iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa o dhan buu laayay lamaa balaqahu markuu soo gaaray amru hada sayid ninkaanu saciid binu jubayr markii loo sheegay arsala ilayhi qaa'idan nin buu u diray ciidan wato yusamaa lagu magacaabo almutalamis binu laxwas wa macahu 20 rajulan 20 nin buu yidhi wado min ahli shaam min khaasati asxaabihi dadkii uu ku kalsoonaa ah raadiyu ninkaa meelu jiraba soo qabto saciid binu jubayrna wuu iskaga cararay oo meelaha duurku iska galaybo markaasay raadinayaan duurkaasay ka raadinayan ayagoo daydayayo yaa waxay soo mareen nin yacni suufi ahoo nasaar ahoo meel sawmicaa ku jiro sawmicadiisii isaga jiro fasa'aluu canhu way weydiiyeen ninkaasaan doonaynaa nin yacni saciid binu jubayr la yidhaahdo ma aragta markaasuu wuxuu ku yidhi bal sifeeye see u egyahay way u tilmaameen markaasuu wuxuu yidhi war halkaasuu joogaaye ninkaas cibaadada badan soo maaha meeshaa ka raadiya fandalaquu way tageen fawajaduuhu saajidan yunaaji biaclaa sawti asagoo ilaahay la munaajoonayo sujuud ku jiray u tagay markaasay u dhowaaday way salaameenoo waka markaasuu markuu salaaddii buu taam yeelay markuu salaaddii ka baxay ayuu salaamtii ka radiyey faqaaluu lahu waxay u yidhaahdeen arsalana alxajaaju ilayk xajaaj baa noo soo kaadireeya fa ajiibhu ajiiboo na keende qaala wuxuu yidhi walaabudda min alijaabati waa lagama maarmaya inaan u taga miyaa waa lagama maarmaan miyaa qaaluu waxay yidhahdeen laabudda ilaa waa inaa u tagto waana la soo diray dee qasab baana looga dhigay inaan ku keenno meelaad joogto فحمد الله إلهي بمهدية وأثنى عليه وأمانه وصلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام وإستاغي فمشى معه والراعي حتى انتهى إلى دير الراهبي ننكي سوفي آي وصوت المامي بي مرين فقال الراهب وحيري يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم ننكي صاحب كينا وصوه شنمية أدوني سين قالوا وحيري هذا نعم فقال لهم وحيري وما شرمانين عاو بريانو دبريكتي بحان wuxuu yidhi iscadu dayra war guriga kor u soo fuula fa ina alubuwata iyo walasada ya'wiyaani xawla dayr habeenkii markii la gaaro gobolku dhaco guriga dhinacyihiisa waxaa soo dhoobanayay libaax yacni lubuwada waxaa layaha goosha asadkuna waa libaaxi aarka hawa marka halkan libaaxyo fara badan baa soo dhanay oo gool iyo aarki iyo wixii o dhan baa soo wada fadhiisanaye guriga soo gala libaaxu yuusa idin dil intuuna gobolku dhicin soo gala guriga ففعلوا ذلك كل قد قريب يكون عررين وأبا سعيد أن يدخل الدين أنو ما قال يبر قريب فنان كان يسكجوبه سعيد بن جبر واجد فقالوا له حيونا هذا ما نراك إلا تريد الهرب منا عررت فنان كان سيحان تاتر هذين عاون نقول له متصمها العررت يا رتا سعيدو هاي قال وحير الله ما عرري ولكن لا أدخل مقلي منزل مشرك أبدا قال قري أنو ما قال يبر هل كان يسكجوبه من عرري إذا كما عرر يعني هاي قالوا وحيدا فإنا لا ندعك أنه كاتق منه فإن السباع تقتلك حتى هداد قال مسين كاغتك نادي وعماشا لباحيا صور دوبنا يلي لباحا كعوني قال سعيد وحير إن معي ربي وراني ربي جايبا إلى جلو يصرفها عني إلهي با إليه ووحي واردين إلهي با إلي وحدي باتي قاري ما يان أرض اسك حراود قرق اسك قلا سيحدى ديم قالوا وحيدا أفأنت من الأنبياء ومركي سألوا إلى لنا من نبي باتادو قال وحر ما أنا من الأنبياء أنا النبي من ميه أنبياء كمن ميه ولكني عبد أرضهم باني من عبيد الله إلهي أدومي سكمله خاطئ وقبسن ومذنب ولي دنبي له دنبي قلي مركا إلهي با إلالنا يا أدوم بانهي فقالوا وحيدا احلف لنا لو دارو الله أي أنك لا تبرح إن هذا ماشا كتغين نو دارو فحلف له ودارت إن أنا ماشا كدقاقين مان والله إذن كو دارنا يابو وعند ذلك أبو قال لهم الراهب وحوير ويكتغن مركا قرية كو عرر وربال أذنكو قرية صوغ يعني مرحبا وأوتروا القصية لتنفر أي سباع إني عرض قرية انتا صوغ شاك
bahal dawan la yidhaahdo ay awtaarta yaan dhawaajinaysaa dhow ka siiya bal ninkaan hadduu diiday inuu guriga soo galo bal inuu ka cararo yani libaaxu uu ka cararo waay yani inuu libaaxu cuno ayaan ka yaabaya ninkaan bahal guriga bay iskaga xaroodeen bahalka dawankii la yeeri la garaac waay waxba libaaxi waabaka iska socdo markiiba iyadoo la dhowrayaba gooshii baa soo baxday libaaxa moodtay sida badan gooshaa hor kacdo waay goosha ayaa hor kacdo marka gooshi baa soo baxdayo say usoo socotay marxaban falamaa danad min saciid markay usoo dhowaatay tamasaxad bih uma rabad intay sidaas yani u taabatay bay agtiisa iska fadhiisatay agtiisa hayay iska fadhiisatay markaasaa haddana waxaa soo baxay aarkii baa soo baxay fa sanaca mila dalika asagana saas buu u taabtay ku riigtay markaasuu agtiisa iska fadhiistay waay waxa yeelayo maaha falamaa ra'a raahibu daalika markuu arkay oo wa asbaxuu ay waa beriisteen sidii baa waagu ugu baryay saciid oo meeshii buu isaga cibaadaysanayey halkaa libaaxiina siduu u agfa fadhiyaa subxii libaaxi waa iska tegey waa iska galbaday subxii buu soo baxay marka ninkii raahibka ahaa baa soo degay wuxuu yidhi waniyow nin wanaagsan oo ehlu khayr haa tahay bal diintiina nabigiina lagu soo dejiyey bal iiga warran bal ee rasuulkaaga sunnooyinkiisa iiga warran fa fasara lahu saciid daalika wuu u fasiray fa aslama raahibu ninkii raahibkaa meeshiiba ku islaamay wa xasuna islaamuhu wa aqbala alqowmu baa soo qaabilay ilaa saciid qoladii lasoo diray xajaaj uu soo diray baa saciid yani soo qaabilay yactadiruuna ayagoo u cudur daaranaya wa yuqabiluuna yadayhi wa rijlayhi gacmaha iyo lugahay ka dhunkanaya wa ya'khuduuna turaaba yani aturaaba aladii wadi'ahu bileyl habeenkii meesha waxaa loo dhan ku tukanaya bay carradiisa uga soo qaadanaya markaasay wejiga marsanaya way barakaysanaya lugaha iyo gacmahay ka dhunkanaya niyahow annaga haddee khiyaar ma lihin ninkaad ogeyd baana soo diray haddaan ku keeni weynana annaga unbu kurka naga jaraya ee adiga annaga maaha waxa ku wadno haddaan moodayna saan kumaana soo doonayn aya haddana wuuna dhaariyey oo dalaaq buu nagu dhaariyey nin walbow naagtaada ku dhaaro haddaad aragta ninkaa inaad ka soo tegay naagtu inay kaa furantay ku dhaaroy dhibbadnidiisa mogta waa nin dhib badan bu xajaaj ay qofku dee wax uuna yeeli karin buu ku qabanaya fiiri ku dhaaranaya dalaaq buu nagu dhaariyey marka niyaho noo cudurdaaro haddii umar kolleyba kaas hadduu un kuu geynana un ku dili way ogyihin inuu dili ilaahay agtiisa bal yani inaan ku beri noqono ilaahay agtiisa bal xujo inay noo noqoto annagu waxba kuman dembiga annaga ma nihin waa kan ictidaar bay samayn waxaas waxba maaha wuxuu na keena aya anugu wuxuu ilaahay ii qadaray kama cararayo qadarka ilaahay na keena waxaan iska dhaaf ay may soo socdeeno magaaladii xajaaj uu deganaa baa la soo galay aya magaaladii waa xajaaj marka magaaladii la soo gelayo oo habeenkii la hooyanayo ayuu wuxuu yidhi nimayo waxaan arkaa buu yidhi in ajalkaygu soo xaadiray ajalkaygiiba horta soo xaadiray buu marka wuxuu yidhi caawa farta iga qaada ay uubatal mowt yacni caawa waxaan qaadanayaa mowdkaan u sahay qaadanayaae qabriga iyo meesha cidladahaydoo la iseexinayey ayaan xusuusanayaae munkar iyo nakiir su-aashoodii baan xusuusanayaae marka caawo yani iska kaydaaye oo ballanku waa noo berri qaarkood baa yidhahdeen dee amaad noo imaan weydaa mid ayaga ka mid aha wuxuu yidhi anaa idiin ballan qaadaya farta ka qaada ninkaas soo ninkaa taqaaneen maaha saalixa markaasay direen subxii meeshaan ku ballaminahay sheega gurigaa noogu imo subxi markuu waagu beriya asagii baa albaabka kusoo garacay gow waa kumo saaxiibkiin weeye waa saciid aad baa loo yaabay markii bay soo kaceenoo xajaaj binu yuusuf baa loo keenay xajaaj binu yuusuf ninkii multamis ahaa ee yani ciidanka watay baa usoo galay markaasu wuxuu ugu bishaareeyey saciid baan wadnaa buu yihi saciid binu jubayr waa wadnaa halkaa lasoo istaajiyey saciid binu jubayr markuu hortiisa lasoo istaajiyey wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf masmuka magacaa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr baa la yidhaha buui qaala wuxuu yidhi xajaaj anta shaqiy binu kasiir saciid binu jubayr laguma dhehee shaqi binu kasiir baa lagu dhahaa buui ya hadalxumada meesha ka bilaabay fiiri shaqi baa tahay buu yidhi oo saciidkii magacii buu ka bedelayaa jubayrkiina macnaa kasiir buu ku bedelay shaqi binu kasiir baa lagu qaala wuxuu yidhi saciid ummii hooyaday yaa kaanad ahaatay aclamu mid kaa ogo bismii magacayga minka adiga qaala wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf shaqiita anta wa shaqiyat ummuka adiga iyo hooyadaaba waad ur darsateen buu laba ehlu naar baa tiin laba ehlu naar qaala wuxuu yidhi saciid algaybu qaybka yaclamuhu hayruka yacni qofkaan inuu naar geli doono iyo inuu janno geli doono waa shay qaybahe moogta qaybka adiga kayrkaabaa yaqaano buri ilaahay baa og wey qaybka adu waxba kama ogid waxaan noqon doonaa aniga hooyada waxba kama ogid wey uma qaala lahu xajaaj baa wuxuu yidhi la ubdilanaka waan bedeli bidunyaa adduunyada waxaan kuugu bedelayaa naara laba
الدنيا أنا أتكون نوشاي وأن كاوض ياي وحن كوكو بدل يا نارتي يعني لضاهد قال وحجر سعيد لو علمت هدان وقال لها أن ذلك بيدك إن هذه يعني نارت أضوء أدقعنت كوهيسو لاتخذتك إلها إله بمكادق الله أبو قال وحجر آيه حجاج فما قولك في محمد محاضر هذا بالكور قال وحجر سعيد نبي الرحمة وي قال وحجر حجاج فما قولك في علي بالكور رنبوري هل هو في الجنة أم في النار علي ما جنته كجرا مثل النار كجرا قال وحجر سعيد لو دخلتهما جنة النار هدان قال لها أو عرفت أهلهما دتك كجرا أن صارك لها عرفت وأنا قنصل لها من فيه ما دتك كجرا وأن كالوغان لها وأنا كوشيك لها لكن أنا جنة النار ما قلبي دتك كجرا كما ورم دتك كجرا ما شاء وعبك ما أبي قال وحجر فما قولك في خلفاء الراشدين محل قال وحجر سعيد لست عليهم بوكيل أنا وكيل كما يهيبي قال وحجر فأيهم أعجبوا آية إليك كاد أوجع عشان قال وحجر أرضاهم لخالقي متك إلهي أورالك كي هيوي يعني أوجع لها متك هاي أرضاهم متك أورالك بدنه لخالقي خالقي أورالك قال وحجر فأيهم أرضى للخالق كي إلهي حقي أورالك بدنه إلهي أوجع عليه قال وحجر سعيد علم ذلك كاس علم جيسو عند الذي يعلم سره ونجواه آية متك الله وجع لا الله أورالك بدنه متك يعني أحد كي سرته يعني ظاهر كوده بقى أي علم جاسوك قال وحور حجاج فما بالك لا تضحك محال لقسلين وهذه أن قسلين قال وحور سعيد بن جبير أيضحك مخلوق مياه قسلاي مقصل بأوبنا أن خلق من الدين دوبا لقى أبوري والدين دوبدنا يأكله النار نار تعنيس قال وحور فما لنا نضحك أنقوا أن قسلين محان ودع مركز وانسقط لنا نوي قال وحور سعيد بن جبير لم تستوي القلوب قلوبتي إني أنا قاقم لم تستوي القلوب وحبا منا قرني وي معناها هذه قلوبتي إنه وحقرت منا قصشين ثم أمر الحجاج وحو أمر باللؤلؤية والزبرجتية والياقوتي فوضع بين يدي سعيد وح الله وحي جوهر يلول وحي قروح بناي ودنا والدنيا بهيستني مدحوا هاي هل كان صور دقا سعيد بالا صور دقا فقال له سعيد وحويري إن كنت جمعت هذا وحن كل مسي لتفتدي به من فزع يوم القيامة قيامها أرقق حيثوين ينحدين تيسئنا سقفرته فصالح ووحو نفسه وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا خير في شيء جمع من الدنيا إلا ما طاب وزكى وحي حلاله في عنه وحكى الخير من ثم دعا الحجاج وحوير بآلات اللهوي وحلا وحي يعني موسى كذا دربانك يا بلايد اللي وقع راعي جرو رنبو هذا هلا كان فبكى سعيد فقال الحجاج وحيري ويلك يا سعيد ما حد له أي قتلة تريد أن أقتلك سيتربط أين أنكودله بل دور نوعي أنكودل لها دور هذه سيتربط أي قتلة تريد أن أقتلك قال وحيري سعيد اختر لنفسك النفط هذا أدور يا حجاج فوالله بانكو دارتي لا تقتلني إمدش قتلة هي أتدلت إلا قتلك الله إلهي باكو دلي مثلها أيضا وكلا في الآخرة نوعي أديد سوم بعدين آخر اللي قد اليوم والقو عذابي ونوعي بالقو عذابي قال وحيري يعني حجاج أفتريد أن أعفو عنك ما إن أنكو عفيا رتا قال وحيري سعيد إن كان العفو آية فمن الله آية إن كان العفو عفيقه آية فمن الله إلهي حقي سهدوية وان ربا وأما أنت أديك فلا أديك حقا وحفيون كان ربا مجر وحفيون كان دوني قال وحيري اذهبوا به وضعوا فاقتلوه دلع ايش اللي تاغيين مركز الدلع كركا كغوي فلما خرج من الباب كمركي لغا ساري ضحيك وقص لسعيد فأخبر الحجاج بالله شيء بذلك وقص لسعيد فأمر بردي سوء عليه فقال وحيري ما أضحكك محاكا قصلي قال وحيري سعيد عجبت وحن لا يابني من جراءتك أديك ديرهنيد على الله أتكون ديرهنيسو إيا وحلم الله عليك إلهي سلوك وقود القادني ما أرك قف مؤمن أتكسو قفا وأدمرنه إلهي سبحانه وسكر دوري وقود القادني بالفير وحن لا يابني جراء هذا إيو إلهي حلمي كتان لا يابني فأمر بالنضع فبصد بين يديه هل كانوا يركسوا مقاركي بهل نضع هركا ويلا لسبا لي مقارك هل كان كسو قبل ودتك كو قوري عجل ماشا حجاج هرتي ساسال لو كسو قبل آية وقال وحيري اقتلوه دلع فقال سعيد وحيري وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا آية وما أنا من المشركين آية ذات أخرى وجهت وجهي وأنجهي بوري وجهي للذي فضر السماوات والأرض
حنيفا حالا هيمد إلنا وما أنا من المشركين قال وحي الحجاج وجهوه لغير القبلة حق قبلة كالجهدية حق أوسي جهدية قال سعيد وحي فأينما تولوا فثم وجه الله قال الله ما يشهد وجه سدبه فثم هل كاسوا هاي ثم يعني هاي وجه الله أي قبلة الله فقال سعيد وحي أي كبوه لوجه أفكر لك أقلية يعني ما القبلة بها وجه دنع بها وجه دنينه هوس وجهدي يعني أبكي لك وجهدي أو مركا هلكا كجورع فقال سعيد وحي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هذه أرض حق اللي جدي بس دوكا آية منها خلقناكم أرض ما ندين كأبورني وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مركلا لبعضنا ولا ينكسوا بعناية فقال الحجاج وحي اذبحوه جورع أحلى كرا يماه جورع مركز ماشي لمن فقال سعيد وحي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال وحي سعيد اللهم لا تسلط على أحد يقتله بعدي أحد ذنبه وأنيق قداش إله يوها كسر لازم من كان مجرم كان وين أحد أنيق يقدم به إله يوها كسر لازم فذبح سعيد ولا جورعي على النضع بالو جورعي آية فكانت رأسه مدعي سوحوها بعد قدعها مركي لقوية تقول مثل هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدحي كل جيوان كل جيبة توحيسنا يمركب أنت لقوية هلك وقرعي يتوحيسنا ياو وعاش الحجاج ونور بعد قتله 15 يوما سنة تنبري كلي وكدم بيوه آية وذلك في سنة 95 يعني سقاشن يسنتي به وكان عمر سعيد وهو 49 سنة فرتن يسقال سنجري رحمة الله آية تعالى عليه ورضي الله عنه آية في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع كرامة الإنسان هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريد الجاني هي قصة صاغ الحديد فصولها بمداده الدامي وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم بؤسا بعد عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالطريد الجاني